kulanti wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta Soomaaliyeed Production kuna soo dhawaada barnaamijyadeena qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qaaday tallaabo si weyn u kala fogeyn karta Soomaaliya iyo Somaliland iyo caro xoogan oo ka dhalatay hadal uu ku dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya wararku aadan ayaan idin heynaa qodobadana kalena waxaa ka mid noqonaya dawladda Soomaaliya oo shaacisay sida loo shirqoolay nabadoono lagu dilay gobolka Hiiraan iyo cidda fududeysay dilkooda waxaan idila wadaagi doonaa xog ay dawladdu daaha ka qaaday ayaad barnaamijyadeedkan ku daawan doontaan waxyaabaha kale aan idin heynana waxaa ka mid noqonaya dood adag oo ka dhalatay fariin uu Sheekh Umar u diray Khadiija Diiriye oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya wasiirna ka ah xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza fadeexad ka dhalatay hadalka sheekha uu sheegay iyo Khadiija Diiriye uu jawaabtay ayaan idin soo gudbin doonaa gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo diiday qorshaha muddo kordhinta Siciid Dani iyo xiisad ka taagan magaalada Garowe macluumaadadaas iyo kuwa kale oo xasaasi ah ayaan idin kula wadaagi doonaa barnaamijyadeena dhammaantiinba muuqaalkan laagidhaha sidoo kale tan aragtidiina qaybta hoose ee commentiga kula wadaaga oo gaarsiiya saaxiibada jecel inay mar walba helaan xogihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamkaba waa mahadsantihiin daawadayaal dhammaantiin faafahinta ayaan u guda geli doonaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa khudbad u jeediyay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi Mareykanka gaar ahaan Washington ayaa waxa ka dhalatay caro xoogan khudbadaasi oo uu si qoto dheer kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland iyo xiriirka haatan ka dhaxeeya dawladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay hadal si weyn ay kaga caroodeen bulshada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolada waqooyi ee sida weyn ugu soo dhaweeyay magaalada Washington ee dalka Mareykanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dawladdiisu aysan diyaar u ahayn wax la yiraahdo gooni isku taaga Somaliland amaba Somaliland waxa uu sheegay in Soomaaliya ay mid ay tahay isla markaasina aysan jirin dawlad Somaliland la yiraahdo dawladdiisu ayuu sheegay in dadaal xoogan ay ku bixin doonto sida Soomaali loo mideyn lahaa balse waxa uu sheegay in shucuubta Soomaaliyeed ay marnaba kala go'i karin cidna aysan kala jiidi karin wax walba oo lagu kala aragti duwan yahay ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in xal loo heli doono kala fikir duwanaanshaha siyaasiga ah ee jiro ee u dhaxeeya labada gobol ee Koonfur iyo Waqooyi sidoo hadal ku dhigan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya hadalada qaar oo madaxweynuhu uu sheegay ayuu si weyn ugu daray siyaasiyiinta hadda talada ka haya Somaliland iyo kuwa mucaaradka ee kala fikir duwan isaga oo sheegay in si weyn uu kaga xumaaday markii dad shacab ah uu ku daatay gobolada Somaliland oo ay ka dhaceen xasarado siyaasadeed oo ka dhalatay doorashada Somaliland hadalada qaar uu sheegay madaxweynuhu ayaa si weyn waxa kaga carooday bulshada qaarkood ee ku soo dhaweeyay magaalada Washington xaflad kooban oo madaxweynaha uu ka qayb galay ayaa hadalkan uu ku sheegay isaga oo khudbadiisa dhinacyo badan uu kaga hadlayay dhinaca uu ka hadlayay Somaliland ayuu sheegay in madaxda hadda talada hayo waqtigan uusan la hadli doonin maadaama buu yiri iyaga talada isku haystaan marka ay noqoto in go'aan laga gaaro oo ay dhan u dhacdo xiisada ka dhaxeysa Somaliland ayuu sheegay in dawladdiisu ay u tafaxiidan doonto sidii la isku keeni lahaa Soomaalida kala yirowday balse waxa uu si weyn ugu nuuxsaday in Soomaaliya iyo Somaliland marnaba aysan kala noqon karin laba dal oo kala madax bannaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbadiisu dheeraad ayaa waxa si weyn u soo jeedatay markuu yiri madaxweynaha marna ma ogolin gooni isku taaga Somaliland hadalkaas ayaa waxa ay u muuqatay in dadka qaar ay si weyn kaga caroodeen iyagoo munaasabadana la arkayay dad isaga baxeen munaasabada gudaheeda khudbadu jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kulan ka dhacay magaalada Washington iyo waliba nabaaxigeeda ayaa qurbo joogta Mareykanku waxa uu ugu baaqay inay gacan ka geystaan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu ay saameeyeen madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in aysan dawladdiisa haba yaraatee wax gorgortan ah ka gali doonin marka la eego gooni isku taaga Somaliland hadalkiis waxa uu ku yiri annaga gooni isku taag Somaliland ma ogolin madaxweynaha Soomaaliya oo hadal u jeedinaya Soomaalida ku nool Washington iyo nabaaxigeeda ayaana sheegay inaysan jiri doonin waxaasi loogu yeeray nooc walba oo gorgortan ah oo lala galo siyaasiyiinta hadda hogaamiya Somaliland kuwaas oo laga galayo midnimada Soomaaliya dhinaca kalena dagaal ayaa ka dhex qarxay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo lagu soo dhaweeyay magaalada Garowe ayaa shaaca ka qaaday in doorashada Puntland ay dhacayso 8 January sanadka 2024 gudoomiyaha Cawl ayaa waxa uu diiday wax ku darsi ah
waxaana uu sheegay inaysan jiri doonin wax muddo kordhin ah oo loo sameyn doono maamulka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. hase ahaatee dimuqraadiyaddu ayuu sheegay inay gaarkeeda u soconayso balse doorashadu ay tahay waajib cad oo ah in la qabto. gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa ka soo laabtay dalka dibadiisa waxaana la xaqiijiyay in xiriir ahaan uusan wanaagsaneyn xiriirka kala dhaxeeya madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo waliba gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi. mowqifka gudoomiyaha ayaa dhabarjab xoogan ku ah qorshe wadamacsanaha madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni oo ahayd in hal sano muddo kordhina uu sameysto si la mid ah maamul goboleedyada kale sanadka dheeraadka ah oo ay ku darsadeen. isla Garowe xiisad culus ayaa ka taagan iyadoo mas'uul uu ku dhawaaqay in uu dacwad ka gudbin doono madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. geesta kaleetana dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay arrin filwa ku noqotay dadka Soomaaliyeed kadib markii dowladdu ay sheegtay in la shirqoolay nabadoonadii lagu dilay gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo war-saxaafadeed soo saartay oo ka hadashay qaraxii lagu dilay nabadoono ka soo jeeda gobolka Hiiraan weerarkaas oo ka dhacay deegaanka Buqa Qable ee u dhaxeeya degmooyinka Beledweyne iyo Bulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegtay in weerarkaasi uu ahaa mid shirqool ah isla markaasina nabadoonada la shirqoolay. qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa sidoo kale daah lagaga qaaday in weerarkaasi la qorsheeyay uu ahaa qarax miino ah oo lagu dilay 3 nabadoon mid kaleetana lagu dhaawacay kuwaasi oo ka soo jeedo beesha Baadacade oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed ee deegaanka gobolka Hiiraan. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya waxay cambaaraynaysaa farkii arxandarada ahaa ee kooxda dhagarqabiyaasha argagixisada Al-Shabaab xalay abaaro 10kii fiidnimo ay ku beegsadeen kuna dileen qaar kamid ah nabadoonada beesha Baadacade oo kala ah nabadoon Yuusuf Fiidow iyo wiilkiisa Ibraahim Yuusuf Fiidow, nabadoon Mukhtaar Xaaji, nabadoon Xasan Xuseen Lugayare iyo lamida lagu dhaawacay nabadoon Axmed Xasan ayaa lagu yiri qoraalka wasaaraddu ay soo saartay. sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in la shirqoolay nabadoonada iyagoo ku sii jeeda deegaanada Al-Shabaab si ay u soo daayaan shacab kooxdu ay ka xiratay. wasaaradda ayaa sidoo kale waxay sheegtay in qaraxa loo dhigay ka hor inta aysan gaarin meesha ay u socdeen waxaana wasaaraddu intaas ay ku dartay in odayaasha ay hore u diideen lacago iyo dhalinyaro askareyn Al-Shabaab ay u damacsanayeen taasi oo ay si weyn kaga hor yimaadeen. falkan shirqoolka ah iyo dhagarta kooxda argagixisada u dhigeen odayaasha dhaqanka oo u socday in ay soo daayaan shacab beesha ay ka abduubatay kooxda Al-Shabaab ayaa loo geliyay miino wadadii ay ku safrayeen deegaanka Buqa Qable ee u dhaxeeya Beledweyne iyo Bulaburde ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. dhinaca kale tan dood ayaa ka dhalatay fariin ka timid Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo kamid ah culimada ugu waaweyn ee Soomaalida ayaa fariin uu soo diray waxa uu si kulul uga hadlay dhar ay dhawaan ay ku libisatay wasiirka haweenka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye. sheekh ayaa waxa uu sheegay isagoo adeegsanaya ereyo adag in ay qalad weyn ay tahay in surwaal ay xirato wasiir Khadiija Maxamed Diiriye kadibna ay wadada ama meel bulsho isugu timaado ay u soo qaadato. waxa uu ku eedeeyay iyada iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Saacadiya Samatar in ay fariin dad kale u soo dhiibeen xambaarsan yihiin oo ka fog dhaqanka iyo diinta Islaamka laguna dagaalamaya dadka Soomaaliyeed sida uu sheekhu hadalka u dhigay. wasiirka haweenka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye oo maanta ka jawaab celisay fariinta uu soo diray Sheekh Umal ayaa ka falcelisay si ka duwan qaabkii la wada sugayay. waxay sheegtay wasiir Khadiija in dad badan oo haween ah muslimiinta caalamkana kamid ah iyaga oo kaleeto ay xirtaan saraawiisha una midkeeda ka duwneen kuwa ay xirtaan haweenka kale ee muslimiinta. wasiir Khadiija ayaa hadaladeeda waxa ku jiray kuwa ugu gafaysa sheekha. arrintan ayaa hadalhayn weyn ka abuurtay marigada ay ku kulmaan bulshada Soomaaliyeed. wararka ka imaanaya magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa sheegayo inay sii kordhayso xiisadda siyaasadeed ee Puntland ka taagan. magaalada Garowe ayaana la warinayaa in maanta ilaa iyo caawa ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay go'aankii uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo habeen hore uu ku kala diray golaha deegaanka ee Garowe. Axmed Saciid Muuse oo ahaa gudoomiyaha golaha ayaa ka hor yimid tallaabo uu qaaday madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni isaga oo ku tilmaamay mid sharci darro ah. gudoomiyaha hore ee golaha deegaanka magaalada Garowe oo la hadlay BBC-da ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in madaxweynuhu uu ku meel dhacay sharaftiisa waxaana uu ku tilmaamay in uu qareen qabsan doono si uu maxkamad ugula soo tiigsado Siciid Cabdullaahi Deni. madaxweynaha Puntland ayaa kala dirista golaha deegaanka ee Garowe waxa uu cuskaday warbixin ka timaada xafiiska antidhowrka guud ee dowlad goboleedka Puntland iyadoo madaxweynuhu gudoomiye cusub uu magacaabay magaalooyinka Garowe, Gaalkacyo, Boosaaso ee dowlad goboleedka Puntland. si kastaba ha noqotay xaaladda Puntland ayaa maalmihii dambe waxa ay ahayd mid aad u kacsan kadib markii xal waara laga gaari waayay aragtidii magaalada Boosaaso ee ka dhalatay hogaanka ciidanka BSF. odayaal dhaqameedka Puntland ayaa la qorsheenayaa in xiisadan ay soo kala dhaxgalaan. gudaana daawadayaal intaas ayaan ku soo meerayaa barnaamij wareedka aad kala socoteen warbaahinta Soomaaliweyn Production tan iyo kulanti dambe nabadi warsan.